duuliye fuaad waxa loo haystaa muwaadin reer Djibouti weeyaan ciidamada duulista kamid ahaa sarkaal xidigla ah pilot ahaa Mars ayuu isagoo oo dareeskiisii sita tagay xerada ciidamada duulista Djibouti isku dayay si qarsoodiya inuu diyaaradaasi u kiciyo u duuliyo tion war laga qabin wadanka dagaalku dhaxmaray cadawga ah ee Eritrea diyaaradii waa u kici weyday dabeeto si qarsoodiya ayuu u buxuu wadanka Ethiopia ugu gudbay isagoo Eritrea u sii jeeda halkaas uu muuqaal ka soo diray isagii oo sheegaya in uu xagga u socdo khiyaano qaran ba lagu haystaa dambigaas uu xiran yahayna Fuad Yusuf Ali warkan ah inuu diyaarad la baxsan rabay horay uma aydan sheegin waxa kaliya ognahay annaga waxa weeyaan inuu ninkan Ethiopia u baxsaday deedna Ethiopia idin soo gelay runtii weeyaan oo maxaa odaygu wuxuu yiri waxaad qarsataaba uu ku qarsadaa annagu de waxa ay arintaasi tilmaam u tahay kamaanu hadlin waxaas oo dhan de nidaam maxkamadda u yaala bay laakiin waa run oo waana looga badiyay warbaahinta taas waa runta weey markii Ethiopia ay idin soo dhiibtay Fuad ilaa hadda imisa bilood baa laga joogaa bishii Abriil 2020 ayaa loo soo gudbiyay dambi baarista Djibouti 3 bilood baad hadda gacanta ku haysaan Fuad maxaa maxkamad loo keeni waayay ama maxkamad ma la keenayba waa la keenay walaalow ka hadli maayaan si qarankiisu midna laakiin intoo la keenay waad ogtihiin oo waqtiga 22 halkan waxa dib weyn ba ma ogtay sida caalamka intiisa kalaba Djibouti iska taalay oo u soo waxa caabidkan covid-ka la dhaho oo maxkamaddu ay xiran tahay oo haba yaraatay waxa dhaqdhaqaaqa dawladdu in la joojiyo cudurka saameynta baan le daraadii ayay maxkamaddu fadhiisatay la dhageystay waxa loo gudbiyay qaybta dambi baarka baaritaankii baa socday inta maxkamadda aan loo tabinay 25 May bishii dhaweyd bay ahayd muddo 3 cisho loogu soo dhawaabay wuxuu weydiistay in la sii daayo ama in dhakhtar la dhigo ka bacdi xaakinkii markuu diiday racfaan buu ka qaatay khamiistii bishii 4 June khamiistii dhaweyd yaa loo fadhiistay maxkamadda racfaanku ay qaadatay inta aan horta go'aanka sideenta ama dhakhtarka aan laga hadlin in loo diro baaritaan caafimaad oo laba dhakhtar oo reer Djibouti la cayimay si ay u soo booraan xaaladda uu ku sugan yahay Fuad qarankiisuna wuu joogay khamiistii dhaweyd oo maxkamadda la galay laakiin cid ka hadlaysa ma jirto jaamacow ninkan waxaa la arkayay isagoo musqul ku jira ama suuli ama kaniif sidaad u taqaanaanba muuqaalka maxaad ka leedahay waxa weeyaan horta waa ayaan darro weeyaan ma ogtahay oo annaba ma jeclin ma ogtahay qof dawladdii iyo maxkamaddii u xidhan in darxumo ama dhib lagu sheego habase ahaatee idinku niman journalistatiin kamarada haddii la duldhigo musqul bay tusaysaa marka waxaad leedahay musqul kuma xirno Fuad ee qol caadi oo xabsigu ku xiran yahay waxa uu ku xiran yahay qol musqul leh musqushiibu kamarada duldhigay laakiin qolkaasi waxa weeyaan hadda baaritaan baa lagu wadaa oo Fuad markii baaritaanka aan sameynay arrintan say ku soo baxday isaga laftigiisa qirtay inuu telefoon loo soo gudbiyay ilaa bishii 5 May duubanayay in koronto loo galiyay qolkiisa in bahashan marwaxadda uu dhigay loo dhigo ku charge gareysanayay marka waxay ku tusaysaa ninkaasi nin fiiro gaar ah lagu hayay ama si gaar ah meesha uu ku xiran yahay loogu ilaalinayay in uuna si ahayn xaaskiisa waxay noo sheegtay jaamacow inaad u diideen in ay aragto Fuad walaalow Fuad wuxuu xiran yahay maanta ilaa waqtigan ku sheegay Abriil bishii 22 ilaa maalintan dhaweyd ay soo baxday arrintan videoga uu meesha ka dhex duubay wuxuu saddexda waqti maalin walba cuntaa loo geeyay reerkiisa qarankiisa uu la kulmay araggu de mar walba wuxuu meesha waa xabsi weeyaan uma arki karaan reerkiisa maalin gaar ay u leeyihiin ma aragtay in ay arkaan oo jimcaha ugu dambeyntii arrinta Fuad kacdoon bay keentay Fuad waa xiran yahay maxkamadiisana way socotaa Djiboutina xirxirnaan fara badan iyo dimuqraadiyadoon sidaa u fiicneen baa laydinku eedeeyaa ma xaqiijinaysaa xer ilaalihii Djibouti maadaama aad tahay Fuad inuu cadaalad helayo waan xaqiijinayaa Fuadna anaa damaanad qaaday inuu cadaalad madax bannaan oo xaq ah uu heli doono dambigiisana si sax ah maxkamaddu ma aragtay u xukumi doonto haddii Ilaahay